بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maanta xarunta dhexe ee xisbiga Samo booqasho ku yimaadeen xubno ka socdaan Hirshabeelle isla markaasna laga dhageystay warbixino ku aadan maamulka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaasna warbixin kooban ka jeedin doona socdaalkooda ee ku yimaadeen xarunta dhexe ee xisbiga Samo. waxaan halkaan ku soo dhaweynayaa mudane Mr. Abukar Arwaax. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شكرا تمام. وحن سلام يا أمة الصوماليات. وحن سلام يا بقولتهم يا فرد قلنا تعالى ديسو. وحن هاي مسؤول كتر سنة حزب Samo. جوجنا دولة دولات هيرشابيل. أنا هنقول إيران. وحن بقشوا إلى ما تحفيز حزبنا. شركي قميص له ودي جيران كسوق يبدلني إن شاء الله تعالى وحنا قول هذا النوع ونكسني أرايا وحرجينا نقول يقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay Mr. Abukar oo ka hadlay in wada shaqeyn dhab ah la sameyn doono xafiiskan dhexe iyo xafiiska Hirshabeelle insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. hadana waxaan ku soo dhaweynayaa mudane magacaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سلامتين أمة الصوماليات جودهان ملو بيجوجان جارهان أمة هيرشابيل وحنا هاي حبن كترسن أما مسؤول كترسن حزب Samo مدحضة حزب Samo أيامات توحين وعزومين حرمتا حزب Samo شركة عادية سنجرين أبوابا خميس لها وين كنا عتيين ولوعن iyo maartay hormar wanaagsan insha Allah taala. aad buu mahadsan yahay. ugu dambeyn waxaan ku soo dhaweynayaa xogayaha guud ee xisbiga Samo mudane Shaahid Aadan Qardoon. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeyso mas'uuliyiinta xisbiga sinaanta amaanka iyo midnimo ololeynta dhammaan inta ka soo qayb gashay shirka maalinta oo khamiis ay taariikhdu tahay 19 waa shir caadi ah وأدين السلام يا بقول تمانية أفرت براك على الدين سلام كذب وحاف فرحت نوعه تد مسؤولين حبنا قرار حقه كتر السن سما كتر السن جارهان كسر جيرو مع الجبلات هيرشابيل جارهان قبل كهيان أنا إيمان تنقل سوقين كلين حبنا هاس أو أنا مركب ورا مقنين ماشي جوجان howlaha xisbiga ka waday ka shaqeynayay hase ahaatee maanta ay dhacday inay xamar markay soo galaan ay la kulmeen shirkii caadiga ahaa saa darteedna ayay waqtigoodii safarka ahayo xamar u soo aadeen meel isiga dhigoon maanta danay qabsan lahayn ay u baajiyeen si ay warbixin u siiyaan xisbiga ayakana ay warbixin u qaataan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa ku mahadsan yihiin. waxaan leenahay kuma eka intaan yani wixii way arkeen xaqiiqdii bay arkeen xaruntii ay arkeen mas'uuliyiintii ay arkeen shaqadii ay arkeen shaqadii laga rabay dowlad goboleedkii Hirshabeelle laga rabay in xisbiga uu ka qabto ayaa waxaan filayaa inay si wayba wadeen oo qabyo iyo wixii ka dhadhima dhamaystirkeeda inay aad u sii dhamaystiri doonaan. marka waxaan leeyahay soo dhawaada haddaad soo gashaan xamar hooyigiisa oo aad leeydeen waa kan meeshii xisbiga xaruntooda waa kan laamo way iska jiraan oo maaragtay yani xisbiga uu ku leeyahay xaafadaha kale oo degmooyinka kale isku leeyahay laakiin xarunta dhexe waa halkaan sidaad aragtaan. waxaan rajaynaynaa eelaha aad idinkana ku sugantihiin oo maamulka Hirshabeelle in aad sidaan oo kale xafiis aad u furtaan ninkii xisbiga ka tirsan oo tagana haddii aad isku soo hirin doona sidaan oo kalena ma taashido aad u qaban doontaa hadduu alla idmo. waa mahadsantiin khayr alla idin siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay xogayaha guud ee xisbiga Samo mudane Shaahid Aadan Qardoon. sida aad ku aragteen groupka ama social media la soo bandhigay waxa laga hadlayay ama ajendaha ku saabsanaayeen in shirku oo la kulmo ama ajendooyinka ugu horeysa laga hadlayay ahayd in laga hadlo maamulada
marka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Banaadir intaba marka maanta sidaad aragtaan waxaa lala kulmay xubnaha Hirshabeelle kulankan waa sidaas uu joogto ayuu socon doonaa in shan maamul kasta ama maamul goboleed kasta laga rabo 5 xubnood ayaa ku qoran ajendaha oo laga hadli doono kulanka oo la soo dhigay social media marka arintaas ayuu daba socdaa kulankan Hirshabeelle oo ku saabsan oo maanta hor yimaadeen xarunta dhexe xisbiga Sama insha Allah ugu dambeyn kelmateen inuu nagu soo xiro kulanka gudoomiyaha xisbiga Sama mudane Ogasawa Sheekh Hussein Honeero. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدا هوري لو شيغي قيبها برشادة أو هالكام كفلوسان يوصل لويين وكيل لدى كسودا دولة قولات كهيرشابيل أو كسول لويين حزب حرونتا حزبيغا أنا كان سيدا وكالا أيان وصول لويين يا وعن ليا هاي maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle xubnaha ka socda ku soo dhawaada xarunta dhexe ee xisbiga ku soo dhawaada shirkana waa ka qayb gasheen oo caadiga ah xamiislaha la qabanay waxyaabaha ka soo baxayna waa wada dhirigteen oo ah waxa waaye in maamulada dowlad goboleedyada ka kooban federaalka la taageero iyo sidoo kale in la taageero maxaa la yiraahdaa dadka barakacay oo wax loo ururiyo la taageero in la taageero dadka jiifa isbitaalada kuwaas dhan in xisbiga talaabo ka qaado ama u gargaaro ayaa go'aanada la isla qaatay ay ka mid yihiin isla markaasna in la taageero fikirka Soomaalinimada ku dhisan oo ah ilaalinta iyo xuduudaha dalkeena inaysan taas gorgortan midna laga gelin xuduudaha dalkeena inaan ilaashino waa mid aanan gorgortan loola gelin taas ayaan taageersanahay waxaan rabnaa in dowladnimadii dhanba waxay ku jirtaa in xuduudaha aad ilaashan karto haddii lagu leeyahay xuduudaha maxaa ilaalinin taas macnaheedu waxa waaye dowlad maba tihid way marka fikirka Soomaalinimada oo ah ilaalinta xuduudaheena dalkeena xisbiga sinaanta amaanka iyo midnimo ololeynta taageero buuxo ayuu u hayaa iyo dadka barakayna in oo maxaa loo ururiyona waa mid ay isfarnay dadka isbitaalada jiifana in wax loo ururiyona waa mid ay isfarnay maxaa la yiraahdaa MCH-yada dalka wixii loo heli karo dadka ku xiran oo iyagana in wax loo ururiyo xisbiga waa intaas oo xisbigana waa qorshahaas waa mid aan gaarnay waa ku wada taageerayna waxaan leenahay dadka ka socda ma dowlad goboleedka Hirshabeelle fariintaasna inaad gaarsiisaan dadkaas dowlad goboleedkaas joogan oo taageerayaasha xisbiga oo inaad gaarsiisaan ayaan jecelnahay إن شاء الله تعالى أنت جوكتنا وعن لنا حفيزك يا الكلام مقنان حفيزك معلمها وشرايو وسنين يا خميس بس وفرية هاي ساعات كسو والوشك يا ساعات كسو والله وهي وباهتا أنت حمر جوكتنا حفيزك على سهري رسال إن شاء الله تعالى صلوا هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.